السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غيرت كوسو دوادا فلنقينت إسكانر كان. maanta waa October 6 2020 scannerka waxa ugu horeeya PBSI oo $3.20 wuxuu kor u kacsan yahay boqolkiiba 103%. WWR baa ku xiga $12.20 maraya hadeertan 46% kor u kacsan yahay. Floatkiisu waa 7 milyan 12 milyan baa wax la kala iibsaday so far. XTNT waa $1.99 30% kor u kacsan yahay. OGEN waa 78 cent $30 kor u kacsan yahay. AYX suuqa looks like only hal kaliya waa boqolkiiba boqol kor u dhaafay kicitaankiisa waana kan BBSI shala suuqa markuu xumeeyay $48 buu marayay hadeertan wuxuu marayaa $3.26 sarkac badan buu suubiyey. maanta markuu uu koreysana wuxuu tagay $3.48. It looks like inuu mataqaanaa dad badan ay gadanayaan uu xarako badan leeyahay. kambanigana wuxuu soo saaraa Pioneer Power Solution malaa wuxuu degan yahay gobolka New Jersey Mareykanka. Electrical equipment and parts waaye waa fiican yahay. waxaa ku xiga WWR si u jeedaan VWAP-ka dhowr jeer buu ka kormaray wuu soo dhacay inkastoo shalay uu gaaray markuu u badneyd $18 iyo xogaa haddan uu marayo $12.32. VWAP-ka waa buu ag taagan yahay. VWAP hadda waa ka booday dhowr jeer wuu dhaafay last 10 minutes awse last 20 minutes uu dhaafay oo kusoo noqonaya labadan jeer halkaas buu kusoo noqonaya so hadda inuu dhaafay in kale la garan maayo laakiin ilugu wuu taragaranayaa mar kale waa u dhaafay baan rajeynayaa. yes waa dhaafay 12.60 maraya. waa kan labaad oo suuqa hogaaminaya suuqa furitaanka 2 daqiiqo ka dhiman. kan saddexaad waxa waaye OGEN waa raqiis zaid ah 78 cent ku fadhiya ala share. VWAP ka hooseeya raqiis zaid waaye qasaarihiisa badan noocan oo kale intuu boodo soo carar kor intuu aadana soo dhigaa ma fadhiyo. hopefully waxaan rajeynayaa suuqu inuu xaraka badan yeesho maadaama ay tamaanin talaadooyinka maamaha waxay tahay mataqaanaa suuqu fiican yahay. hadda daqiiqad baa ka dhama insha Allah tacaala waan la socodsiin doonaa wixii markaas ka soo kordha. wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.